Faatax hooyadii iyo aabihii waxay ka mid ahaayeen Soomaalidii ugu horeysay ee yimaada magaalada Washington DC iyo agagaarkeeda wuxuu iiga warramay magaalada uu ku dhashay halka uu ku soo koray iyo goortii uu guuray gobolka Minnesota ee uu haatan ka tartamayo. I was born in Washington DC in 1990 and raised in Annandale, Virginia. My parents both immigrated from Somalia before I was born. My father came in 1963 and my mom came in the 70s. And after I graduated with my master's, I moved out to Minneapolis, Minnesota. waxaan ku dhashay Washington DC sanadkii 1990kii waxaan ku koray xaafadda Annandale ee gobolka Virginia. labadayda waalid waxay ka yimaadeen Soomaaliya. Aabahay wuxuu dalkan Mareykanka yimid sanadii 1963kii. Hooyadayna waxay timid bartamihii 70-yadii. Markii aan jaamacadda heerka koowaad iyo heerka labaad ee masterska dhameeyay sanadii 2015 ayaan u guuray gobolka Minnesota halkaas oo ilaa ay hadda deganahay imikana u tartamayo golaha sanadka ee gobolka. Cumar waa wiil firfircoon laga soo bilaabo markii uu ku jiray dugsiga sare wuxuu si weyn uga qayb qaadanayay hawlaha samafalka bulshada kuwa dugsiga wax ku baranayay iyo degmada uu ku noolaa ee Annandale, Virginia waxaanu qayb lixaad la ka qaadanayay u doodista xuquuqda dadka soo galootiga ah iyo dadka laga tirada badan yahay ee madowga Mareykanku ka mid yihiin. markii ay daadiisu soo gaadhay 23 jir wuxuu u tartamay guddiga maamula dugsiyada waxbarashada dawladda ee gobolka Virginia balse xilligaasi oo ku cusbaa hawlaha siyaasadda awgeed umay suurtagelin inuu ku guuleysto xubinnimada guddiga maamula waxbarashada gobolka. kadibna wuxuu u guuray gobolka Minnesota oo uu ka bilaabay hawlaha samafalka bulshada iyo taakulaynta dadka jilicsan. maraan wax ka weydiiyay waxa uu ku doortay inuu u tartamo golaha sanadka ee gobolka Minnesota wuxuu ku jawaabay I was always involved locally both in Virginia and in Minnesota. I quickly realized that local politics affects our lives more than at the federal level. People tend to only focus on the presidential election and the congressional election, but I'm going to be representing one of the most poorest districts in Minnesota. markii aan Virginia joogay ilaa imika aan Minnesota deganahay inta badan waxaan ka warhayay siyaasadda gudaha ee degmooyinka iyo gobolada. waxaan xaqiiqsaday in nolosheena ay saameynta ugu badan ku leeyihiin siyaasadaha gudaha ee gobolada balse dadka inta badan ay isha ku hayaan siyaasadda guud ee madaxtooyada iyo Congress-ka. markii aan Minnesota soo degayna waxaan arkay dhibaatada dadkeena ka haysata adeegyada ee gobolada iyo degmooyinka uga baahan yihiin. degmada aan ka tartamayo waxaan matalayaa qaar ka mid ah dadka ugu tabarta daran ee gobolkan ku nool waxaana ugu badan dadka kale ah Soomaalida, Oromada, Laakiinka iyo dadka asal ahaan dalkan Mareykanka loogu yimid. waxay dhibaato ka haysataa helitaanka guryaha, caymiska caafimaadka iyo daryeelka kale oo ay u baahan yihiin. dadkani waa kuwa xanuunka coronavirus si weyn u saameeyay. badankoodu waxa ay waayeen shaqooyinkoodii, waxa hoos u dhacay dhaqaalihii ay ku noolaayeen, waxay iska bixin kari waayeen kiradii guryaha oo waa laga saaray. kuwa badanna caafimaad ahaan ayuu u saameeyay. Cumar Faatax ayaan weydiiyay shaqooyinka uu qaban doono haddii loo doorto golahaasi iyo sharciyada uu ku soo kordhin doono amaba uu taageeri doono haddii uu ka mid noqdo aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Housing as well as the Health and Human Services. Those are the two committees that I would be the most interested in serving as of now to make sure that everybody is covered and everybody is insured. I think that's extremely important to make sure that healthcare is a right. And number two, we campaigned on a $15 an hour statewide minimum wage to make sure that everybody in the state has a livable wage. And if you work a 40-hour week, that you're able to pay rent. haddii la doorto waxaan la shaqeyn doonaa guddiyada dejiya shuruucda guriyeynta iyo kuwa caafimaadka iyo arrimaha bulshada wax ka qabta. waxaan dadaalkayga oo dhan isugu geyn doonaa in qof kasta uu helo caymis caafimaad oo aan lagu xirinin inuu shaqo haysto iyo in kale. waa in dadka oo dhammi ay helaan daaweynta iyo daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin. waxaan xoojin doonaa xeerar horey loo keenay golaha oo damaanad qaadaya in dadka reer Minnesota oo dhammi ay helaan kaarka caafimaadka. waxaan kaloo aan culays ka saari doonaa sidii dadka shaqeeya saacadii looga dhigi lahaa inay ku shaqeeyaan ugu yaraan $15. imika waxaa jira dad toddobaadkii